kumishinka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa maanta kala diray shaqaalaha iyo gaadiidka ka shaqayn doona goob doorasho bedelka iyo sidoo kale dib u cusboonaysiinta dadkii ay kaararku ka lumeen. Mas'uuliyiinta kumishinka ayaa maanta waxay kala direen shaqaalaha ka shaqayn doona gobolada Togdheer iyo Saaxil. Komishineer Maxamuud Siciid Dalmar oo warbaahinta la hadlay ayaa la dardaarmay shaqaalaha isaguna sidoo kale farriin u diray dadka kaar bedelka doonaya iyo sidoo kale kuwii ay ka lumeen kaarka doorashadu ee raba inay dib u qaataan. afar iyo tobankii bishii February 2021 waxaanu halkan ku kala diray shaqaalihii gaadiidkii iyo qalabkii lagu hawlgelayay berito oo ah Isniin 15 bisha tan oo ay bilaabmi doonto goob bedelkii iyo kaar bedelkii taasoo ka dhici doonta dhammaan gobolada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Somaliland. adeegan la qabanayo ee komishinka doorashooyinka qabanayo iminka waa adeeg ah in kaarkii qofkii hore uu ka lumay loo bedelo. waxa kale oo iyana shaqada ku jirta in qofkii ka guuray meel kale u guuray isagana loo bedeli doono goobta oo lagu qori doono goob cusub. dadka isdiiwaan galiyay diiwaangelintii u dambeysay 2021 iyagu kuma jiraan adeega kan oo iyaga shaqadoodii hal mar ayaa loo wada qabtay. goobaha ay iska diiwaan galiyeen ayana ka codan doonaan insha Allah 31 bisha May 2021 markaas oo ay dhici doonto doorashadii golaha baarlamaanka iyo golayaashii deegaanka. waxaan dadweynaha farayaa adeegan iminka la qabanayo ee ah labada ee ah goob bedel iyo kaar bedel. qofka goob bedelanaya waa inuu waxa la isku bedelayaa oo qura 23 degmo doorasho waxana uu tagayaa qofka muwaadinka markuu doonayo inuu goob bedesho halka uu guuray ama degmada uu guuray ayuu wuxuu tagayaa goobta ugu dhow ee shaqadu ka socoto. waxa uu sheegayaa sababta ugu soo guuray magaalada tan dabadna wuxuu buuxinayaa form dabadna waa laga seexayaa marka ayaa goobta loo bedelayaa. waxa la siinayaa shahaado ku meel gaar ah kaar la siin maayo. shahaadadaas ayuu ka codan doona 31 May iyo doorashada soo socota. qofka doonaya inuu bedesho kaarka kaarku ka lumay wuxuu tagayaa isla goobta shaqadu ka socoto ee ugu dhow ee uu doonayo hadhowto inuu ka codeeyo. waxaana uu sheegayaa inuu kaarkii ka lumay form buna buuxinaya. waxaana uu ku dhaaranayaa oo kitaab jaamaca gacanta saaraya in kaarkii ka lumay oo uu hubo oo aanu helaynin rajana ka qabin. markaas ayaa formka laga buuxinayaa. dabadeedna waxaa loo qabanaya adeega isaga ah in la siiyo isagana shahaado ku meel gaar ah taas oo ku codayn doono doorashada soo socota. waxaan dadweynaha farayaa cidii kaarkooda heli karta inay baadhbaadhaan oo aanay isku hawlin inay goobaha yimaadaan oo ay dadka ay ka dhabta tahay ee kaarku ka lumay ama goobta bedelanaya aanay cidhiidhi ku samaynin. cidii kaarkooda haysta doonato waxaanu ka hawlgelaynaa anagu iminka gobolka Togdheer oo ah 19 goobood laga hawlgelayo iyo gobolka Saaxil oo ah 12 goobood. gobolka Togdheer wuxuu ka kooban yahay 3 degmo oo ah degmada Oodweyne iyo degmada Burco iyo degmada Buuhoodle. degmada Buuhoodle wuxuu ka dhici doonaa Qori Lugud iyo Woodwood. degmada Oodweyne wuxuu ka dhici doonaa Oodweyne gudaheeda oo hal goob ah Xaaji Saalax Dabagorayaale iyo Reydab Khaatimo. magaalada Burco gudaheeda wuxuu ka dhici doonaa dugsiga Maxamed Cali, dugsiga Qulumbe, Sooyaal, dugsiga Qasabka, garoonka kubadda cagta City Plaza. intaasi waa magaalada dhexdeeda waana 6 goobood. magaalada Burco inta ay xukunto ee banaanka ah wuxuu ka dhici doonaa Balidhiig, War Cimraan, Qoryaale, Duruqsi, Riixidho, Harada iyo Fiqi Ayuub. gobolka Saaxil wuxuu ka kooban yahay 12 goobood. degmada Berbera waxay ka socon doontaa magaalada Berbera gudaheeda oo ah Burcasheekh, MCH-ka Berbera, wasaaradda beeraha iyo seeladda xoolaha. banaanka magaalada Berbera waxay ka dhici doontaa Laalays, Abdaal, Laasciidle, Xagal iyo Darin Mara. magaalada Sheekh wuxuu ka dhici doonaa magaalada Sheekh gudaheeda oo hal goob ah Go'da iyo Suuqsade. intaas goobood ka dhici doona. waxaan farayaa dadweynaha in adeegaas uu socon doono magaalooyinka caasimadaha muddo 14 casho ah oo goobo khaas ah lagu reebi doono. laakiin guud ahaan magaalooyinka ka baxsan caasimadaha ee banaanka ah wuxuu ka socon doonaa 10 casho oo bilaabmi doonta berito oo 15 soona gabagabay doonta bisha 23keeda. kaar la bixin maayo iminka waqtiga oo kooban awgeed. waxa iminka la siinayaa shahaado ku meel gaar ah oo shahaado adaga oo leh dhammaan security featureski taasaa kula mid ah kaarka aad ku codayn lahayd. waxaan farayaa dadweynaha inay xafidaan oo ilaashadaan shahaadooyinka la siin doono. Shaafici Maxamed Ibrahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.